these members of parliament, Your Excellency, Speaker, I give them advice every day. Nimankan waa la taliye. Waxaan dhahay kursigan ana 4 jeer ay reer gaar soo doorteen. 4 jeer waxay soo doorteen 4 xisbi. ODM, URP, Jubilee, UDA. oo waliba hadda meeshan faafi hadee reer qaasin iyo reer haaruun ay aqbaltu dhahaan durdurisa ku soo gali ani waxaan jooga meel Soomaaliyo idil iyo nin kasta gaal iyo muslim ee joogaan ka soo gala maxaan ku soo galay ummadda hadii si daacad ah oo ilaahay oo cadaalad leh kii ku doorte kii ku dooranin masaakiinta iyo diinta dad u shaqayso ilaahay baa garab ku noqoni ma dhacaysid ninkan walaal waxaan number 1 madrasa iyo masjid iyo masaakiinta danyarta iyo culimada iyo hooyooyinka horta u roonow waaratan harambe baan qurnaa taqriiban 30 milyan culimada faafi aan u qurno Soomaaliya laakiin hadee waara hoosla u sheegay waxaan dhahay Soomaali waxa ma dhageysanayso watiin kasta akhri oo ruuxa lagu fadhiya dhaata doorashada faafir waa garan waa loo hayaa marka waxa weeye maashan waxa weeye ilaahayna tala saaro ummadana u shaqee dadkana haddii aad si cadaalad ugu shaqeyso oo walaalnimo oo kibisa si fiican ugu qaybiso caruurta afiida uga bixiso lacagtooda aad cunin qalbigooda ilaahay baa soo duwi aday ku dooranayeen ana hadda koor waxay u dhacday doorashadii 2017 maamada oo aan wiilasha fi uga bixiyay yaa ii imaatay iyadoo murugsan guriga uga imaatay maam ii waran adana waxay tiri maxaan dhahaa maanta jaamaan ku jira meelaan istaagaan laay adana maxaa dhacay maama caruurtii ku diiday ku dooranayeen hadii aanay wiilkii hebel ahaa oo habar yarta aan u ahaa yaa kula taagan maxaan sameeyaa ay tiri maama waxaan dhahay wiilashii caruurtu aan ma dooranayeen adaka wiilka habar yarta u tahay kaasra Soomaali taas waa qofka waxa lagu doortaa wuxuu qabtay iyo cadaalad hal sano ay bar ninka shaqo fiican uu qabtay magaalada waa magaalo barakeysan hii town mimi na mheshimiwa William Ruto tulikuja Your Excellency tukafanya harambe tukafanya miradi huyu wa Sheko kwake Masalani ile barabara lami mnaona Masalani ni mheshimiwa Ruto alianzisha akiwa deputy president ile stima iko Masalani yeye ndio ameleta akiwa deputy president hada bariyan siyaasi waan ka baxay mahmada waxaan la aadaa Soomaaliya soo warkay ma haysin mahmada bariyan meelaan kuma sheegi xamar iyo garowe iyo Kismaayo iyo jigjiga markii laga yeero yaa midoo tuurta midoo yaa tuurta dawladda hadda wadadan laabshadan dhisayna laami baan saar rabnaa insha Allah hada waa la bilaabay kun ciidan oo ciidamada Kenya ilaalin doonaan bridge ki weynaa oo Garis ile bridge kubwa ya Garissa ambayo imejengwa ukoloni imebadilishwa sasa bridge impya imejengwa contractor ya 1 billion contractor ako katika hiyo bridge sasa ukienda na barabara zote hii barabara ya 8 km Your Excellency Mr. Speaker kutoka hii bridge ya Bura paka hiyo barabara ya Mombasa nimemwambia Hangol hiyo barabara tutaweka lami inshallah in the next 2 months so hii ni serikali yenu ni serikali ya mheshimiwa William Ruto hata ninkan Rero Mahmud waan qaribanne yaan ku dhahay anaka duq Raila markii shaqo ugu dambeysay oo berigi anaka aan la soconaani Ruto oo prime minister uu noqday soo moogidin haddana waan fiirinay duq shaqo doonte asaga doonta shaqada anaka maana qasbin shaqo doontay
wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan noqdo meel Afrika idil ugu weyn yahay inuu shaqo ka doonto ninka saaxiibka oo walaalka markuu shaqo doonto waa garab baa loo noqdaa sisi tumesema na speaker anajua yeye yako ndani kabisa kwa State House rafiki yetu mheshimiwa Raila Amolo Odinga yeye kwa hiari yake ametafuta kiti cha AU chairman kutoka maraisi wa Afrika sisi ambaye ni wa Kenya na Rais William Ruto is not a petty leader. He is a very good national leader. Tumeamua kauli moja kama Mkenya wetu, mzee wetu ambaye is overqualified ametafuta kazi hiyo, sisi kama serikali, sisi kama Wakenya tuna jukumu moja ya kumsaidia huyo mzee apate hiyo kazi. Hata hankusha Salah Yaqub adi hata kuwa kuli istaagi doonaan iska meele shaqo u raadi sheekho iyo Arab Dur iyo udgoon iyo ninkaneeto hadhaado ka yimaada hata ninki ma barra kuli istaagi ha ku sii istaagin meelaha u yar shaah u gad roose waa armaade cidi ma ku fiican tahay biil ma haysataa doorashada waa hal maalin walaalnimada ka weyn soomo marka waa arkaysi ninkan walaalka anaga wuxuu noogu yeeray hormar baasas buu keenay gawaari wata buusa buu keenay aanu siyaa maqlay hadii Harun loo way dhaqan jireen markuu arkaba aanu la boode ana de waxa ku dhahay war caaraniyo maalinta aad gadi wasday ama magaalada noo umaadaan aanu bilaabay bazari waad maqlayseen wuxuu yiri iskuulada kudi bazari MBHana walaalahana kudi aadan daawudo kaas mashimiwa kero waxaan tagay ceelwaqan ugu tagay anaka waxaan rabnaa khaasatan ani iyo mashimiwa keenan anaka waxaan rabnaa dadka anaga inay midoobaan markay midoobaan diinta loo midoobi diinta garab loo noqon markii la midoobo ummadda ayaa loo hadli markii la midoobo dawladda ayaa ka baqay oo marka codkiina way dhageysan markii la midoobo bulshada ayaa kor u soo kici marka aan midowno mid aan noqono anagana waxaan la hadlaa sidii wiilkiinoo kale laakiin hadda xildhibaan mi wasiirka difaaca waddanka maane Kenya baan wasiir u yahay muslimiinta waddankan mathala Soomaalidan mathala haddaad rabtiin wadooyinkan in la dhiso waddankiina waad inaad ka ilaalisiin nin kasta oo nabadgelyada waa inaad la shaqaysiin amniga jiifafka iyo DC-ga iyo nin kasta wiilasha boodhaga ka shaqeeyaan si fiican dhageysta iyo kuwa proboxka wadaan iyo hooyooyinka maqaayadaha iyo qaadka gadaan shaqo fiican ayaad haysiin ilmaad ku korisiin laakiin intay hawani qaado oo dhan qaado in jeebka nili buuxiyo inka al-shabaab isku day inaan la hadashin wala waa idii goodinayaan maanta waa idii goodinayaan mujaribu ukiwa hapa wewe ni Mkenya wewe ni lazima ufanye kazi na vitengo vya usalama kati ya sisi kama serikali ya President William Ruto kama commander in chief na mmeona katika karibu mwezi 9 hii nchi imepata usalama. Wewe kama ni Mkenya na unajaribu kufanya biashara na wahalifu na magaidi, siku zako ziko chache kabisa. We will hunt each and every person who collaborates with the terrorists, with Al-Shabaab, the way we hunt Al-Shabaab themselves. Na tumepata Wakenya wengi hapa Bura, Fafi constituency, Garissa Township constituency, Ijara constituency, paka Wajia na Mandera. Mheshimiwa Aden anatoka mpakani.
Mheshimiwa Elwak anatoka mpakani. Wananchi wamefanya kazi vizuri sana na sisi. Shacabka zaid buu noola shaqaynaya. Nabadgelyada waa shay muhiim haddii nabadgelyo la waayo caruurtiina iskuul ma aadayiin. haddii nabadgelyo waayo hooyada bacdaha ma furanayso. haddii nabadgelyo la waayo wiilkeena boodha ma ka shaqaysan karo. haddii nabadgelyo waayo wiilka proboska wata caanaha ma soo qaadayo. haddii nabadgelyo la waayo hataa masjidka lama aadayo. marka waxa ay ka baryaa reer Faafi jamac culummada odayaasha hooyooyinka dhalinyarada mas'uuliyadda ka saaran inaad nabadgelyada wadanka nagala shaqaysiin. diyaar muutiin gacmaha kor taagan al-shabaab la dagaalama. diyaar muutiin watu yangu wako sawa. Mr. Speaker, wamesema wako tayari kupambana na al-shabaab vile mimi napambana. adika arkantiin nimankan ayaa nagu sii dayn anaka waxa u bixiseen waxaan nimankii eega wateen Soomo. laakiin shacabka fiican qof taaban ma laho. nin taaban ma laho. laakiin ninkii dhoo 10,000 shilin jeebka gashana oo al-shabaab aan ka soo qaatay 10kaas ay to meeshan kuma marayso. waan ka soo ridaynaa. waa laga soo ridi. telefoonkaadaan dhageysanaynaa. shahaad u karisaan fiirinaynaa. annaka hadhow hana eedina. marka waad mahadsantihiin. away culumadii waxay raadinayeen reenaani ma joogaan meeshan. culumadii reenaani akhbaarkooda la soo gaarsiiyey. waxay dhaheen madarasada waa la buuxsamay. caruurta baanaanka waa qarsanayaan. away MCA iyo naani bas labada qol anaa u dhisaa insha Allah. labada qolna u dhisaa. marka soo dhawaada.